hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga ah ICRC ayaa lagu soo waramayaa in sanadka cusub ee bilan doona January 2026 ay jari doonto shaqaalaheeda in ka badan 17% taa oo u dhigmayso ku dhawaad 3,000 oo shaqaale ah oo ay fanishi doonto. Hay-addan ayaa lagu soo waramayaa in ay soo gaartay dhaqaale xumo baahsan taa oo saameyn ku yeelatay adeegyada kala duwan ee caalamka daafaheeda ay ka fulin jirtay. Hay-addan ayaa lagu soo waramayaa in ay miisaaniyadeeda hoos u dhacday ku dhawaad 2.23 bilyan oo dollarka Mareykanka ah taa oo u dhiganto ilaa iyo 23 bilyan oo koronka Norwejiga ah. Waxaana lagu soo waramayaa hay-addan oo ay soo gaartay dhaqaale xumo baahsan in ay hadda isu diyaarinayso in ay shaqaalaheeda kala dirto. Madaxa ugu sarreeya ee hay-addan laanqeyrta cas caalamiga ah ee ICRC Mariana Eger ayaa iyadu ku waramayso in ay tahay in ay wajahayaan xaqiiqooyinka aan la dhayalsan karin taa oo ah saameynta ay ku yeelanayso hoos u dhaca dhaqaale ee dunida dhanka gargaarka soo wajahay. Waxaa xusid iyo xusuusinba mudan in dowlado badan oo dhaqaale badan ku bixi jiray hay-adaha kala duwan ee gargaarka oo uu Mareykanka ugu horeeyo iyo Midowga Yurub ayaa hadda dhaqaalahoodii inta ugu badnaa waxa ay u jiheeyeen dhanka hubka iyo u diyaargarowga dagaalada la fili doono kuwa oo la saadaalinayo in uu adduunka ka qarxi doono dagaalkii saddexaad ee adduunka. Waxa ayna miisaaniyadihii gargaarka ay ugu talagaleen u wareejiyeen dhanka ciidamada iyo hub aruursiga taa oo saameyn ku yeelatay hay-adihii gargaarka ee daafaha dunida gargaarka ka fidi jiray. Hay-addan oo ah hay-adda ugu weyn ee dhanka arrimaha gargaarka ayaa iyadu ku waramayso in ay sanadka cusub dhimi doonto ku dhawaad 3,000 oo shaqaalaheeda ah. Waxaana lagu soo waramayaa in tiradu ay sii tari doonto mana ahan mid ku kooban oo kaliya ICRC ee waxaa jira ururo badan oo caalami ah kuwa oo dunida gargaar ka fidiyo kuwa oo iyaguna wajahayo dhaqaale darro baahsan maadaama wadamadii dhaqaalaha ku bixi jiray ay dhaqaalahooda u wiiciyeen dhanka difaaca iyo gaashaandhigga. Halka warka kuwooda ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.